yacquubna waa ka tegay bi'ershabac oo wuxuu u kacay xagga haaran oo meel buu gaadhay oo halkaasuu habeenkii oo dhan joogay maxaa yeelay qorraxdu way dhacday markaasuu qaaday mid ka mid ah dhagxantii meeshaas oo barakaday halkaasuuna jiibsaday si uu u seexdo wuuna riyooday oo riyadiisii wuxuu ku arkay salaan dhulka qotoma oo caanadiisana samada gaadhay wuxuuna arkay malaa'igihii ilaah oo ku koraya kuna soo degaya oo bal eeg rabbigaa isdultaagay oo yidhi waxaan ahay rabbiga ah ilaaha awowga ibraahim iyo ilaaha isxaaq dhulka aad ku jiifto waxaan siin doonaa adiga iyo farcankaaguna wuxuu noqon doonaa sida ciidda dhulka oo waxaad ku firdhi doontaan tan iyo galbeed iyo bari iyo tan iyo waqooyi iyo koonfur oo adiga iyo farcankaagay qabiilooyinka dhulka oo dhammu ku barakoobi doonaan oo bal eeg waan kula jiraa meel alla meeshii aad tegtidna waan kugu dhowri doonaa dalkana mar kaleaan kugu soo celin doonaa waayo anigu kaa tegi maayo ilaa aan sameeyo wixii aan kugula hadlay markaasuu yacquub ka toosay hurdadiisii oo wuxuu yidhi wabaal rabbiga halkan jooga mana aan ogayn wuuna cabsaday oo wuxuu yidhi meeshanu cabsi badana tanu meel kale ma aha gurigii ilaah mooyaane tanuna waa iriddii samada yacquubna aroor horuu kacay oo wuxuu qaaday dhagaxii uu barkaday oo sidii tiir buu u qotomiyey kolkaasuu saliid ku dul shubay meeshaas magaceediina wuxuu u bixiyey baytel laakiinse markii hore magaalada magaceedu wuxuu ahaa luus yacquubna nidir wuu nirday oo wuxuu yidhi haddii ilaah ila jiro oo uu jidkan aan socdo igu dhowro oo uu isiyo wax aan cuno iyo dhar aan xidho oo aan aniga oo nabad qabo ku soo noqdo gurigii aabbahay markaas rabbigu wuxuu ii noqon doonaa ilaah oo dhagaxan aan sidii tiir u qotomiyey wuxuu noqon doonaa guriga ilaah oo wax alla wixii aad isiisidna hubaal meel tobnaadka adigan ku siin doonaa